qofka Soomaaliga waxa macquul ah inuu aaminsan yahay in cardio tiro badan uu sameeyo ama markuu gymka yimaado kaleete in caalamiito ilaa saacado qaadanaysa in uu sameeyo ay tahay xalka kaliya qofka uu miisaanka iskaga ridi karayo arrinkaasna xaqiiqda wuu ka fog yahay maanta waxaan rabaa inaan ku tusiyo dad badan aan coach u noqday ayagoo gaari dhegta haya ama truck driver ah sidoo kaleetana dumar badan oo isoo maray oo ayagoo Europe kaamam ku jira aanan awoodi karin inay banaanka u soo baxaan haddana ku guuleystay 20 ilaa 15 kiilo inay iska ridaan ayagoona lacagtooda aanan gym saarin taas macnaheedu ma ahan qofka bini'aadanka ah inuu ka maarmo inuu gymka aado laakiin waxaa jira waxyaabo kale badan oo gymka banaankiisa lagu sameyn karo at the same time qofku miisaan fiican uu jirkiisa ka dhacayo videogan dhamaadkiisa waxaad ku baran doontaa gaar ahaan haddaad dadka cardioga naag dadka galaasaska laga qayb gala ee waqtiga badan uu ku baxo dabcan markaad ka soo baxdana aad dareemaysid laf walbo iyo xubin walbo jirkaaga ka mid ah in ay dikaamayso inaan uga faa'iideeyo videogan dhamaadkiisa waxaad baran doontaa caadooyin yaryar oo fudud oo waaga marka uu kuu bariyo subaxii la sameeyo oo keeni karaba maalinkii oo dhan inay qayb weyn ka qaataan jirkaaga inuu baruurta gubo sida stresskaaga loo manage gareeyo dabcan waxaad ogtihiin number 2 marka hormoonaadka jirka laga hadlayo insulinka marka laga soo tago cortisolka waa hormoonka labaad ee inta badan keena qofka bini'aadanka jirkiisu inuu faadkeed gareeyo sida loo xakameeyo ku baran doontaa videogan oo videogii hore aan uga soo hadlay dadkuna aysan wax macno weyn aysan ka soo qaadeenin waxaanay dhahanaan exercise activity thermogenesiska dabcan waa iska erayo fancy ah oo la qurqurxiyay laakiin muhiimadda laga leeyahay ay tahay in gymka kaliya halka saac ee aad dhexdiisa ku qaadanayso ayna kugu filneen inuu jirkaaga baruur gubo ama faadka uu ka dhaco waxa u baahan tahay movementi gymka banaankiisa ah mar walba stress trainingka dabcan inaad iska yeelato 2 ilaa 3 maalmood oo aad gymka tagayso wax kalena aanan qabanaynin oo aad kor u soo qaadayso kobcinta murqahaaga iyo awoodsiinta lafahaaga adigoo xooga saarayo biraha kala duwan ee gymka yaalo inaad ku train karayso dabcan ma ahan inaad treadmillka inta aad korto ama stairmasterka aad korto aad orod iyo socod waqtigaaga aad ku bixiso bal intaad dadka soo dhex gasho da'da aad jirtidna muhiim ma aha hooyo 50 jir aad noqon kartaa aaba 60 sano jir aad noqon kartaa waxaa kala duwan kaliya agabka meesha yaalo volumeka ama culeyska aad u isticmaalaysid laakiin caafimaad ahaan marka la dhaho midka 20 sano jira adiga iyo ugaga baahi badan sidoo kaleete waxaan ku hayaa oo rabaa inaan kula qaybsado hurdada iyo recoveryga awoodda ay ku leedahay qofka inuu isbedel sameeyo maanta waxaad arkaysaa 60 jirkeena oo xaqiiqda ah 60 jirkeena Facebook buu ku dhafraa kii yaray ee 30 sano jira ee 20 sano jirayna TikTok ku dhafraa caafimaadkeena oo dhan maanta teleefankaas aan gacanta ku hayno yaa la dhexgeliyay and I don't know maanta dadku inta badan waxa aysan uga fakareenin wax badan oo ku celceliyay qofka hurdadiisa bis hadii uu saxo walaahi lacadi wax kale oo baxnaanahay sida caadadeedna waxa ku soo gabagabeyn doonaa 5 caado oo aad maanta bilaabi karto dhaqamo yaryar oo aad maanta bilaabi karto insha Allah taala qayb weyn ka qaadan doono caafimaadkaaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركلة magacaygu waa Kusoo dabcan waxaan caawiyaa dadka walaalaha ah ee da'doodu 30 ay ka koreyso awood aanan u helin 24 saac inay gym waqti ku bixiyaan cuntadana meel laga bilaabo aanan garanin dabcan haddii aad u baahan tahay inaad xiriir ila soo sameyso ama barnaamijyadeeda aan qabtay ee 3 bilood ama 9 cisho loogu magac daray aad qayb ka noqoto linkiga qaybta hoose aan ku soo dhigaa insha Allah taala halkaas igala soo xiriir caadadii ugu horeyso habidyada inta badan waaga marka uu noo bariyo aan ku bilaawno waxay saameyn balaaran ku yeeshaan 24 saac ee maalinka uu ka kooban yahay tusaale yar ku siina hurdada marka ka soo kacdo adoo stress ku hayo waxa ugu horeeya aad sameynaysid uu yahay inaad teleefankaaga intaad soo qaado ama saacad ka fiiri ama haddii aad rabtid si toos ah aaladaha aad daawato sida TikTok iyo Facebook gudaha u gal kadibna musqusha aad tagto caday yar aad isku boobto adoo salaad aanan ilaahayba ogyahay xaalkeeda aad dukanaya kadibna banaanka aad u soo baxdo dabcan
maqaayadaha hore aad u sii marto koob shaaha ah oo sida loo soo kariyey ama koob qaxwo ah qaabka loo kariyey aadan garanayn sokorta ku jirtana aan war u heenin aad horay u sii dafto adoo degdeg kugu jiro dabcan degdegan maahan degdeg maanta kugu jira maalin walbana kugu jira qofka noogu roon ee budgetka ku jira oo xogaa yar lacagta dhurayana markuu soo kaco asaguna intuu jikada tago furuudi yar dabcan furuudu shiiday oo moodo inuu caafimaad badan ka helayo ama waxa noqoto qaxwo uu diyaarsaday oo caano iyo sokor iyo qashin uu isku dhaxdarsii diyaarsado kadibna shaqada uu aado caadada noocaas intaad ku dhex jirto i aamin qulubtaadana way sii adkaanaysaa noloshaadana waxaad dareemaysaa in waqti aad nasanaysid aysan ballahayn waxaad ku bedeshaa waaga markuu kuu bariso wixii beri laga bilaabo habeenkii intaan seexani ka hor galaas biyo ah agta dhigo walaa waxay ka mid tahay caadooyinka caadada lagu bilaabo caafimaadka leh metabolismkaaga kor u qaadayso at the same time aad dareemaysa calal aqal in aad wax uun samaynayso biyaas hadaa awoodi karto cusbadan pinkiga ah ama Himalayan saltiga ama cusbada caadiga ee badda ah xogaa yar ku dar hadaa awoodeeda leedahay markaad soo kacdo oo aad cadeeyato weysadana aad samayso salaada duko هتقدقن إن شاء الله تعالى 5 دقيقة أذكار الصباح ووها وفضت قفك مسلمك مالك يزوك بلاو أذكار الصباح هذا أخرسه هدي أد حزب قرآن آخرين كرت الجسم معهن حزب قرآن هذا آخرين كرتنا حزب قرآن كآخرسه كدبنا سكرين شوت ديرا أنت كوسو سارا فيديو قدارو fiiri dadkan meeshan aan kuu soo saarayo siday u aalmiiteynayaan 30 daqiiqo adoo gurigaaga ka dhex bixin meeshaadii taagan yaad intaad dhidid iska keento jirkaagana uu dhidid bixiyo yaad intaad musqusha ku laabato quweysato shaqadaada aadi kartaa adigoo diyaarsan qaxwaha iyo waxa aad sii marayso inta badan waxaa fiican insha Allah taala videona waan kaaga soo sameyn doonaa habeenkii in aad diyaarsato wax walba oo berito aad rabto inaad isticmaasho tusaale ahaan qaxwaha aad suuxi cabaysid hadaa rabto degdeg inaad iska ilaaliso habeenkii la sii diyaariyaa sidoo kale markaaga jiimka habeenkii la diyaarsadaa sidoo kale tana cuntada xitaa khadada iyo quraacda oo labada cunto ugu soo horeysa ah habeenkii la diyaariyaa aniidka u gudbo lan exercise activity thermogenesis ka videogii hore uga soo hadlay kuma sii fogaanayo laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego 7,000 ilaa 8,000 ilaa 9,000 oo kaliya steps maalinkii haddii aad saacadaada ku aragto i aamin guul weyn yaad soo hoyday oo san dadka kale aysan dareemaynin mid sidoo kaleetana weight loss-kana aad arkaysid ma aha wax maalin ama 2 maalin ama 3 maalin ku dhaco maaha inta badan fiiri marka aad fridge ka gasho oo aad ice cream aad fridge kaas gashatay aad ka soo bixiso ice creamku miiskaaga marka aad soo saarto maxaa dhaca uu adag yahay lama isticmaali karo dabcan dad baa gogoosala ku adag yahay still waqtiga ku qaadataa ilaa uu temperature-kiisa ka dhaco laakiin position mar wuxuu gaari karaa haddii aad miiska ku dhaafto uu waqti qaato farta markaad saan ugu taabato inuu ice creamkii dhan isku dumo waxaan rabaa inaan hadalkaas tusaale ahaan aan kaaga soo qaado guusha isbedelka miisaanka dhacayo waa sidaas oo kale saakay waa soo kacday galaas biyo sariirta agta dhigata cusbayra ku darsatay qofka dareemaysa malaha telefishinka daaratay 30 daqiiqo 15 minutes oo socdo dhiidaad iska keentay qofka dareemaysa malaha jikada gashay quraac yar oo fudud samaysatay 3 xabo ukuna high protein breakfast samaysatay qofka dareemaysa malaha maalinka koowaad maalinka labaad maalinka saddexaad maalinka afraad laakiin waxaan ku huwa markii aad 9 maalmood ku dhex jirto inay dadku ku weydiiyaan caadooyinkaaga maxaa iska bedelay waxaan ogaataa waana positionka uu ice creamku marka uu temperature-kiisa hoos u dhaco barta markaad ku disiso oo hal mar dumayo dadku waxay ku leeyihiin waxay moodaan waxaan aad samaynaysa inuu overnight yahay ina hal isbuuc ku soo hoyday laakiin 9 maalmood qof caadadiisa bedelay inaad tahay dadku kama dhaadhaasano 3 hadaa awoodi karto wayna fiican tahay li'annahu da'da 30 sano mar haday dhaafto jirkaagu culaysa badan ku imaanayo haday noqoleed lafahaaga haday noqoleed kala goosyada haday noqoleed murqaha haday noqoleed meel walbo waxa u baahan tahay 3 maalmood oo maalina wax la dhaho full body training aad sameeyso maalin aad nasato maalin kalena full body training aad sameeyso maalin aad naso maalin kalena aad full body training sameeyso full body training kaas muxuu yahay murqaha jirkaaga inaad leeyso yaad u baahan tahay waxaad ogaataa gacantaydan aad arkaysid haddii maanta aan saan ku dhaafo oo ay saacado saan noqoto way adkaanaysaa kala goosmadayda
inaa hadhowta kala furo gacanteedii inay shaqaysaaba halis galaysaba waxaa ogaataa murqaha jirkaagana waa saas oo kale lafaha jirkaaga waa saas oo kale galagoosyada waa saas waxay u baahan yihiin in laga shaqaysiiyo waxay mararka qaar u baahan yihiin weliba cilmi baarista lagu soo saaray lafahoo kaleete in ay culays rabaan si ay kobac iyo adkaysiba u yeeshaan adigana waxaa laga yaabaa maalinkii oo dhan inaad gaari saaran tahay habeenkii oo dhan inaad sariirta saaran tahay taleefankaas in maanta oo dhan indhaha aad ku hayso wax dhaqdhaqaaqana aadan samaynaynin caafimaadna aad raadinaysid waana sababta keenayso 40 sano markii aan madaxa soo gelinaba in aan da' ku andacoono dadka uga sheekeeno waan weynahay waxba ma samayn karo jir ma dhisi karo miisaan iska maridi karo una fiirso waalidiinteena familka reeraha inta badan u fiirso waxaa laga yaabaa qofkii in la dhaho xanuun baa haya Afrika loo soo diro cilaaj quraanku wanaagsan yahay dabcan quraanku waxa kala sheegayo cilaaj loo diro qofkii kadibna macallinkii cilaajka inuu daawooyin la dul istaago uu China ka soo aruuriyo dabcan wax cilmi ah aqoon ah herbalka fiir daawooyinkan herbalka ah inta badan dadka bixiyo wax cilmiya u malahan waxa laga yaabaa marka qofkii in laba muxuu ahay kumanaan kun oo dollar ay kaga baxdo keliyana uu u baahnaa inuu cuntada iska soxo jimicsiina uu bilaawo ma rabo bini'aadanka dhan waa laga maray waxa adag qof bini'aadan oo rabo ma lahan qofka ma rabo hal saac inuu soo jimicsado mana rabo cuntadii uu cunayo inuu control wuxuu rabaa daawo yar oo la soo siiyo loo soo khaskhasay inuu intuu cabo kadib miisaanka ka dhaco caafimaadna uu ku helo taana ii aamin weligaa ma arkaysid strength trainingka marka 50 jirka u baahan 60 jirka u baahan gymka taga biraha ku train gareeya kasoo taga cardioga iyo meesha lagu sameeyo lagu ordo mishiinada orodka yaala iska dhaafa dhinaca biraha imaada birahana ku aalamiiteeya iiriyana maalmo ugu hore biraha muruqa xanuun ay leeyihiin maba ku sii jartaba qofka markuu weyn yahay laakiin nasasho badan fi samay recovery badan samay aamin 30 biri aaminta waxa ugu celcelinaa waxay tahay waxa faa'iido ku dhex jiraan garanaa 30 biri markay ku dhamaato wallahi bilaa caafimaadkaagu dhan aad ka dareemaysaa xataa da'daada ma xasuusan doontid qodobkan ugu dambeeya stresska iyo xakameyntiisa dabcan hadaa u fiirsato tamilada Soomaaliyeed 80% waxa gadaal u dhigay waxay tahay qofkii family stress haysta caruur stress haysta shaqo stress haysta noloshiisa oo dhan waxay iskugu timaadaa stress laakiin dhibaatada jirta waxay tahay stresski haystay buu stress kala ku daraa qofka tusaale ahaan haddii maanta aniga aan hooyo single mother ahay ama haddii aan ahay family aabe iyo hooyo qurbaha joogo nolosha la daalacayo at the same time caruur korinayo kawar haddii aan ku darsado habeenkii oo dhan inaan telefoon ku dhafro kawar haddii aan ku darsado cuntada iga hor imaatay inaan cuno kawar haddii aan ku darsado macaanka in ani la iga celcelin waayo waxaa ogaataa laba shay ba haddaad isku dartid stresskaaga cirku isku shareera Soomaalida 80% cortisol hormoonkaas waaye waxa caloosha ka soo wada saaran cortisol hormoonku wuxuu awood u leeyahay xitaa murqaha jirkaaga intuu burburiyo inuu faat u bedelo stresska aad ku sheegayo intaad meel fariisato aad ka fikirtid mustaqbalka wixii dhici lahaa iyo wixii adiga kugu dhici lahaa maaha stresska aad ka hadlayo waxay tahay wax walba oo aad samayso nolosha maanta stress leeyahay laakiin in la xakameeyo keliya wax ka wanaagsan ma laha isbar sida neefsigan stresska loo dilo loo neefsado waxa jira breath la sameeyo oo loogu talagalay 5 daqiiqo subax walba qofkii sameeyo habeenkiina wax diin ku saabsan maahan waa wax caafimaadka ku saabsan isku day inaad 10 daqiiqo oo socod ah maalin walba aad samayso socodkaasna uusan ahayn socod aad caalamiito ugu talagashay isku day biyo kulul inaad ku quweysato habeenkii markaad shaqada ka imaado biyaha qabowga kale subaxii markaad shaqada aadaysay fiican yihiin laakiin habeenkii guriga markaad timaado kale biyo kulul inaad quweysato isbar buug yar iska soo qabso wallahi alcadeem journalika waxaan ay dhahaan dad waxay maleeyaan journaliku wax macno leh weyn oo la qoraayo dadka hormaray nolol buug iska soo qabo buugaas waxa ala wixii maskaxdaada ku jiro iskaga qor waa dareemi doontaa fiiri culeyska ku saaranna wuu ka degi doonaa journal samee habeen walbaan sameeyaa maalin walbaan sameeyaa maxaan ku qoraa wax macno leh kuma qoro maanta saasaan dareemay shaqada saanaan ku dareemay saana inta ka dhac waxaas iska qoraa laakiin waxaan dareemaa in culeys badan oo maskaxdayda ku jiri lahaa aan buugan ku faarujinayo break ka qaada teleefankaaga teleefanada break ha laga qaato actually waxa laga yaabaa inaad isweydiiso ninkan nolol kale oo khayaali iskaga jiro waxa ogaataa nolosha quruxda badan ee caafimaadka xambaarsan waa la sameeyaa
waa la sameeyaa adoo nolol ciriiri ku jiro la sameeyaa adoo 3 shift ka shaqeynaya la sameeyaa adoo 12 shift ka shaqeynaya waad sameyn kartaa nolosha muxuu ahay caafimaadka iyo quruxda iyo niyadda muxuu ahay niyad iska leh dadku way dhisaan qof walbana waxa asaga uu sameesto waxa uga ka warto mar walbo Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu leeyahay anigu adoonkaygu wuxuu iga maleysto baan Ilaahay wixii aad ka maleysato aad ka rajayso waad helaysaa laakiin nolosha ciriiriga hadaad isku qanciso oo niyadda ka soo gasho waxaan afirlaatan saac noocan loo shaqeynaa oo saana la qabanaa oo waxaana la sameynaa oo waxaan ma haystay haday ka dhacsan tahay for the rest of your life nolosha noocaas ku jiraysa isku day marka على الأقل ما كنا يعني تعمل فريسته positive وفكر ما تنسان ميتا يعني wax wanaagsan soo gali ma ku dhahay laakiin waxa ku leeyahay iyadoo ficilkeeda wadato adinka yaryar maalintii aad sameynaysid wax ka bedel sleep checklist tina maanta marka habeenkii marka la gaaro especially wallahi alazim 9 hadii la gaaro ama 9 habeenimo la gaaro checklistigan samayso 45 daqiiqo hurdadaada ka hor taleefanada iska dam waxa waqtigaas kadib ku soo wacayo bariha iska sugaano cuntada 3 saacadood hurdadaada ka hor jooji videoga horan ku sheegay hadana ku weelna magnesium glycinate hada heli karto si hurdadaada ay u qoto dheeraato dalkan tirada badan muuqaalka recovery uga sameeyaan magnesium glycinate-ka jadwalkaaga habeenkii ku soo dar biyo kulul ku quweyso hadii intaas aad haween walba saxdo hurdadaadana ay isbedeli weyso aamin haduusan xanuun kale gooni ku heenin naftaada ka dareemaysaa ficilkeena marka shanta ficil aan ugu talagalnay ee aan rabna weegan caadooyinka inaan ku soo darno hore inaan kugu sheega laga yaabaa laakiin haddana xasuusin ahaan u qaado waa cunto walba aad cunto gurigaaga dhexdiisa noqotay 10 daqiiqo ku dhexso socod si cuntada ay u daadagto dhiigana ay u raacdo weegan hadaa waxba sameynin hadaad caalamiitayso yes hal saac oo exercise oo strength training jadwalkaaga ku jiro laakiin hadaa waxba sameynin weegan waxaa samaysaa على الأقل سوحدي مكواه كوبرين 15 بوش أب سمي بوش أب كلام أو سمي كرتا هذا عاد وسمي كرتا عاد وسمي هذا عاد وسمي كرني جلبها ملك ديك حفظ كملك إنا جارتي سقصد معها هذا بلاو تاو هذا الأقول سيد خولي بيع بيس وكلاته at least جيركاga stress yar hadaremo 15 بوش أب سوي سمي 10 بوش أب نهبينكي سمي 25 كاس مالكي كسو xir أبر اسكو دايدا جلاس بيا سريرta habeenkii intaadan seexan karo inaad dhigato suuxigaaga markuu ku barin insha Allah taala aad cabto sidaan isoo sheegayna 45 daqiiqo markii hurdada ay ka dhiman tahay taleefanada iska dami intaas kaliya hada ku celcelis insha Allah taala 90 days ka soo isbedel weyn aad arkaysa walaalka ku sabriye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh